shan iyo tobankan waxyaabood qofnaha uga sheekeynin haddii uusan haysanin. Kow, lacagtaada ha ku faanin adigoo la jooga qof sabool ah ama jeebka uu ka maran yahay. Labo, caafimaadkaaga ha ka hadlin adigoo la jooga qof buka. Saddex, cuntada aad cunto iyo dheragtaada ha ka hadlin adiga oo la jooga qof gaajaysan. Afar, farxaddaada guurka ha ka hadlin adiga oo la jooga qof la soo furay ama guri ka burburay. Shan, awood iyo xoog ha u adeegsan qof tabar daran oo maskiin ah. Lix, xorriyadaada ha ka hadlin adigoo la jooga qof maxbuus ah. Toddoba, carruurtaada quruxdooda iyo qiimahooda ha ka hadlin adiga oo la jooga qof aan ilmo dhalin. Sideed, hooyada iyo aabbaha oo kuu nool ha ku faanin adiga oo la jooga agoon. Sagaal, dhar qaali ah inaad ku libisan tahay ha uga sheekeynin qof aan haysanin wax ka badan inta uu tagsi ku raaci karo. Toban, guulaha aad gaartay ha ku faanin adiga oo la jooga qof waqtigu ku adag yahay. 11, shahaadada sare aad haysatid haddii qof uusan haysanin ama wax soo baran ha ku xukumin inuu yahay jaahil nolosha ka dhacay. 12, gabdhaha aan make-up-ka isticmaalin ama dhar qaali ah aan xirnayn ha ku xukminin inay tahay qof hool xun. 13, qof kuu adeega ama kuu shaqeeya ha u qaadanin inuu yahay qof liita ama maskiin aan waxba haysanin. Wuxuu rabaa inuu xoogiisa xalaal ku shaqaysto. 14, dalxiiska iyo damaashaadka aad ku jirto ha uga faanin qof aan haysanin wax uu xitaa tagsi ku raaco. 15, farxaddaada ha ka hadlin adigoo la jooga qof murugaysan oo kurbo iyo kadeed. Haddaba 15kan arrin ama 15kan qodob ha uga sheekeynin qofna. Haddaba 15kan arrin ama 15kan qodob ha uga sheekeynin qof aan waxba haysanin ama uusan haysanin intaas aan kuu sheegay. Maxaa yeelay noloshu waa kadeed. Marnaba ha kibrin oo dadka ha iska weyneynin. Jooji faanka iyo buunbuuninta naftaada, maalkaaga, darajadaada iyo awooddaada. Maanta waxaa laga yaabaa inaad tahay qof awood badan, laakiin xasuusnow waqtiga ayaa aad uga xoog badan nolosha. Noloshu waa harka labadiisa gelin. Waqtiga iyo duruuftu way isbedeli karaan xilli kasta.